shaqaaqadaasi ay u dhammaato wafdi ahaan xukuumad ahaan waxaan go'aansannay muddadeeda inaan soo afjarno oo ay ku dhammaato arbacada soo socota inay arrintaasi soo afjaranto oo aanay wax ka dambeeya aanay jiraynin. ciidanka booliska sidoo kale waxaan amrayaa oo taliyihii labaad ee ciidanka booliska u joogo ammaanka magaalooyinka iyo miyiga meel kastaba inay u xilsaaran yihiin cid kasta oo ka hor imanaysa ammaanka inay gacan wax kaga qabtaan. maantoo khamiisa bishu tahay 9 abriil oo halkan jooga oo iskugu nimidnay ku dhannahay wafdigii uu soo ambabaxay bisha kowdeeda nabadaynta gobollada Awdal iyo Salal shaqaaqadii ka dhacday oo nabad lagu celiyo. marka hore shaqaaqada inaan u baahnayn dowladaha waan ka xunnahay, ummadda Soomaaliland meel kasta joogto way ka xun tahay. intii ku dhimatay Ilaahay ha u naxariisto, Ilaahay waan baryaa inuu naxariisto, ehelkoogina samir iyo ka siiyo. intii ku dhaawacantayna Ilaahay waxaan ka baryanaa inuu u boogadhayo oo ay bogsadaan. waxaan u mahadnaqayaa cid kasta oo ka qayb qaadatay nabadaynta muddada aanu joognay iyo intii ka horreysayba, wasiirada, janaanada, salaadiinta iyo odayada dhaqanka, gaar ahaan labada beelood ee shaqaaqadu dhex martay ee walaalaha ah ee ku nool gobollada Awdal iyo Salal. aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa nabaddii ay qaateen ku wada dhawaaqeen maalmihiina dhaafay. waanan ku bogaadinayaa, wayna ku mahadsan yihiin. waxaan rajaynaynaa sida ay ugu dhawaaqeen in cid kastiba ay u fulin doonto. ciddii ka hor timaada ee dan gaara ama ha ahaato ama si kaala ha u aragtee, waxaan leenahay raalli ahaada, nabaddu way xidhan tahay, wayna fulaysa haddii la yidhaaho. shaqaaqadaasi ay u dhammaato wafdi ahaan xukuumad ahaan waxaan go'aansannay muddadeeda inaan soo afjarno oo ay ku dhammaato arbacada soo socota inay arrintaasi soo afjaranto oo aanay wax ka dambeeya aanay jiraynin. muddadaasi dadkii qoriga siday ee laba reer walaal isku qaatay waxaan faranaa oo aanu wadnaa inay meelo gaara tagaan oo loo cayimay. ciddii muddadaasi rabta inay ciidanka ku biirtana muddadaasay haysataa. arbacada wixii ka dambeeyana looma ogola, mana geli karaan. janankiiba halkan jooga, waxaa jooga booliiska ku-xigeenka labaad baa jooga. ciidanka waxaan farayaa oon jananka u sheegayaa oo ugu sarreeya ciidamada u hogaaminaya muddadaasi hawshaasi inay ku fusho oo laga bilaabo saacaddaasi jananku amar buu qabaa ciddii ka hor timaada ee fulin weyda ee qaadan weyda talada odayada iyo talada dowladda inay tallaabo cad ka qaadaan. ciidanka booliska sidoo kale waxaan amrayaa oo taliyihii labaad ee ciidanka booliska u joogo ammaanka magaalooyinka iyo miyiga meel kastaba inay u xilsaaran yihiin cid kasta oo ka hor imanaysa ammaanka inay gacan wax kaga qabtaan. waxaan leenahay amarkaasi ha fulo, waanu fulayaa. waxaan leenahay dadka reer Somaliland gaar ahaan gobollada Awdal iyo Salal dadka ku nooli inay awaamirta qaataan, nabaddana la xidho oo ay xidhanto. muddadaa wax ka dambeeyana amar baa soo bixi doona kale markay muddadaasi dhammaato haddii la yidhaaho, waanu shaacin doonaa. laakiin maanta waxaanu caddaynaynaa oonu dadweynaha Somaliland gaar ahaan gobollada Salal iyo Awdal u sheegaynaa nabaddii inay xidhantay. sidaad uga dhawaaq oqaasha iyo salaadiintuba waxaan leenahay ha la fuliyo muddadaasi oo yayna dhaafin. ciidamaduna hadday militariga yihiin iyo hadday booliiska yihiin iyo cid kastabana waxaan faranaa in gacan laga geysto amaradaas siday u fulaan. aad iyo aad baad mahadsantihiin.